السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada barnaamijkeeni xasuus qor dhakhtar idiin qorto idiin diyaariso Dr. Baaq Buubaal ay kasoo diyaariso magaalada Hargeysa. marmar qaarkood bini aadamku wuxuu ku dhashaa duruuf aad u adag oo ka caawinayn inuu nolosha ku guuleysto, sida inuu ku dhasho dal faqiira oo shaqo la'aan ay jirto iyo lacag la'aan iyo duruuf, inuu ku dhasho qoys danyara ama waalid la'aan inuu ku koro. duruuf adag oo bini aadamka ka caawinayn inuu guuleysto ama hankiisa nolosha inuu gaadho. marmar qaarkoodna waxaa jiri karta nuqsaan badan oo ka jira dhinaca shakilkaaga ama abuurta ilaahay kuu abuuray, sidii xubin ka mid xubnaha jirkaaga inay kaa maqantay ama dabeecad aanad bedeli karin oo shakhsiyadaada jirta oo dadka kaa fogeynaysa oo kaa reebaysa qeyrkaaga. waxaa jiri karta nuqsaan ama dhibaato qoyskaaga, reerkaaga, shahaadadaada ama cilmigaad baratay. talow ma jira wax qiimahaaga kor u qaadaya oo kaa dhex saaraya jabkaaga iyo duruufta iyo baahida nolosha jirta. ma jira wax kabi kara nuqsaanka jira shakilkaaga ama duruuftaada ama shahaadada ama cilmigaad haysatid kabi kara nuqsaankaas ama buuxin kara. talow ma jira wax qiimahayga kor u qaadaya dadka dhexdooda anigoo ku dhashay duruuf aanay iga caawinayn inuu qiimahaygu kor u kaco. talow ma jira wax iga caawinaya inaan nolosha ku guuleysto anigoo caqabado fara badan nolosha ay ka jirto. kaas waa su-aalka labaadna waxa weeyaan, ma aaminsantiin inay tahay nicmadaha ugu fara badan ee nolosha bini aadamka ilaahay uu siin karo inay tahay qof kuu dhow oo aaminsan awooddaada iyo caqligaaga iyo maskaxda kugu jirta. qof arkaya wax aanay dadka kale aanay arkaynin oo markaad jabtid ama kuftid gacanta kuu dhiibaya oo duruuftaa kaa dhex saaraya ama naseexad uu ku siinayo oo saameyn kugu yeelanaysa ha noqoto, ama xooggiisa iyo maalkiisa iyo waqtigiisa kuu huri karo saad u guuleysatid oo duruuftaa aad uga baxdid. qofkaas wuxuu noqon karaa waalidkaaga, wuxuu noqon karaa saaxiib, wuxuu noqon karaa xaaskaaga, xataa wuxuu noqon karaa ilmahaaga. waqtigii cabbaasiyiinta waxaa jiri jirtay gabadh la idhaaho Abbaan bintu Cabdilxamiid. gabadhaas waxay dhashay inan la idhaaho Maxamed ibnu Cabdiraxmaan, dadkuna waxay u bixin jireen al-Awqas al-Makhzuumi markuu weynaaday. inankaa ay dhashay la'aanta hooyadii Abbaan wuxuu noqon lahaa dadka nolosha cadaab ku nool, dadka nolosha aana la arkayn ee nolosha ka dhacay ayuu noqon lahaa. wuxuu noqon lahaa la'aanta hooyadii dadka cadaab nafsiya ama mooraalkooda uu jaban yahay ama qalbigooda uu dhaawacan yahay nolosha ayuu noqon lahaa. wuxuu ka mid noqon lahaa dadka tacab badan iyo rafaad badan nolosha ku nool, oo taasuna ay ugu wacantahay shakilkiisa ama abuurtu ilaahay u abuuray ee dhibaato badan ay ka jirtay. laakiin daraadda hooyadii iyo waxay qabatay ayaa ugu wacanayd ninkaas inuu isu bedelo qaadi ka mida qaadiyaasha waqtiga diinta islaamka ugu caansanaa ee saameyn ku lahaa bulshada iyo dadkaba. wuxuu noqday caalim weyn oo dadku cilmigiisa u soo fadhiistaan. wuxuu noqday nin qalbigiisu xaadhan yahay oo cuqdad aana qabin oo naftiisa ku kalsoon oo wax kastoo ay dadku ka sheekeeyaan shakilkiisa iyo abuurtiisa siduu eeg yahay aana dan ka gelin oo naftiisa iyo ilaahay wuxuu siiyey nolosha raalli ka ah. wuxuu noqday daraadda talada ay hooyadii ay siisay nin cid walba u imanayso oo xukunkiisa iyo cilmigiisa dadku ay qaadanayaan, nin dadku ay ixtiraamaan oo ka haybadaystaan. wuxuu noqday nin tusaale dadka u noqdo dadkuna ay ku dayanayaan oo raadkiisa la raacayo. haddaan ka sheekayno sheekadan Abbaan iyo inankeedan, sheekadu waxay ka bilaabantay markii Abbaan inan yar u dhashay. inankaa yar wuxuu noqday inan cayb weyn ama dhibaato weyn abuurtiisa iyo wejigiisa iyo shakilgiisaba ay ka jirto, iyadoo haddana u dhalatay gabadh aad u qurux badan oo markay yarayd dadku ama gabayaal fara badan loo tirin jiro quruxdeeda laga sheekayn jiray. laakiin marmarka qaarkood ilaahay dadku wuxuu ku itixaami karaa wax aanay filaynin, xataa hadduu noqonayo ilmo dhibaataysan ama xanuun qaba. inankaas marka laga sheekaynayo Maxamed ibnu Cabdiraxmaan magaciisu ahaa, hadhowtana loo bixiyay al-Awqas al-Makhzuumi. wuxuu ahaa nin tashawuh fara badan ama dhibaato badan shakilkiisa ka jirto. ilaahay umuu abuurin raqabad ama qoor muu lahayn, madaxiisu toos wuxuu ku fadhiisanayay garbihiisa.
marka waxaanu lahaa garbadha dheer oo waaweyn buu lahaa oo madaxiisu sidii inuu hog ku jiro ayay dadku moodi jireen welibana waxa taasna u dheerayd inuu aad u gaabnaa oo shakilkiisa kale indhihiisa iyo afkiisa iyo wejigiisuna uu ahaa weji laga baqaayo oo dadku ay ka carari jireen ninkaas dhibaatadaas ay haysato ayaa waxa ugu wacanay dadku sidii u caayi jireen oo shakilkiisa laga sheekayn jiray lagu qosli jiray ee dhalinyaradii carruurta uga carari jireen ay ka baqi jireen inuu nolosha ka dhaco wuxuu noqday qof bilaa hadafa iyo bilaa hana nolosha oo wajhadii ay ka luntay oo garanaynin xalka u dhaqaaqo taas baa ugu wacnayd markuu yaraa oo dhalinyarada ahaa inuu asxaab xumxum u barto asxaabtaas waxay samayn jireen habeenkoo dhan waxay u tegi jireen dumar fanaaniina oo heesa iyo guryahan laga tumo lagu heeso ayay tegi jireen uu raaci jiray markaasuu dhalinyarada u raaci jiro heesahaas uu iska dhagaysan jiray uu la caweyn jiray ilaa intay noqoto 4 subaxnimo ama 5 subaxnimo ee gurigiisa habeenkasta ku soo noqon jiray hooyadii baa markay u fiirsatay xaalkiisa ay ka xumaatay duruuftan inankeedu ku jiro ay aragtay inuu noloshii ka dhacay ayay maalin maalmaha u yeedhay si runay ula hadashay oo talo saxa ayay siisay oo ugu wacnay noloshiisoo dhan inay isbedesho hooyadii waxay ku tidhi inankaygo wuxuu ilaahay ku siiyey ama kugu itixaamay abuur aana loogu talagelin inuu waxay dhalinyarada kale ay samaynayaan inuu sameeyo meelahan aad tegay sida fanaaniintu iyo dumarku ay joogaan kulleyba laguma eegayo oo shakilkaaga dumarkan uma eegin oo lagaa cararaya marka anigu waxaan talo ku siinayaa nuqsaankan ka jira shakilkaaga iyo abuurtaada inaad ku buuxisid inaad cilmiga sharciga ama diinta aad baratid taas haddaad baratid dadku wejigaaga ma eegayaan oo cilmigaaga dadku baahi u qabaan ayaa lagugu soo istaaga lagugu ixtiraamaya ee taladaasaan ku siinaya hooyadii waxay uga jeedaa hadalkan mushkilad weyn baa jirto oo aanaynu kari karin inaan iska indhatirno ama aan ignoor garayno shakilkaaga dhibaataa jirta dadkuna kuma fiirsanayaan kumana ixtiraaman waana lagaa baqaya waana lagu caayayaa laakiin waxa qudhad kaga bixi karta noloshaas waxa weeyaan inaad wax baratid cilmigu qofka dhulka yaalo kor buu u qaado qiimo buu u sameeyaa qofka nuqsaan noloshiisa uu ka jirana nuqsaankaas wuu kabaa waanu buuxiyaa wuxuu ku leeyahay taladii hooyadii baan qaatay maalintii hadalkaa igu tiri ayaan ka baxay noloshaas ee dhalinyarada raaci jiray oo waxaan bilaabay inaan malcaamadaha fadhiisto iskuullada tago xalaqaat ilcilm inaan fadhiisto culimmada dalka waqtigaa ka jira ugu waaweyn inaan u tago wax ka barto waqtigaygoo dhan waxaan siiyey cilmiga anigoo aaminay inuu yahay cilmigu waxa quran kaga bixi karo noloshan iyo waxa quran dadku igu ixtiraamayaan inuu yahay cilmigan barto taas baa ugu wacnayd hadhowtana siduu wuxuu baranayay inuu noqdo qaadiga maka waqtigaas zamankii cabaasiyiinta iyadoo tartan weyn uu ka jiray culamada qofka noqonaya qaadiga maka uu ahaa xilka ugu sareeya waqtigaas ee qof uu heli kari jiray ama caalim uu heli jiray uu ahaa marka laga sheekeeyo ninkaas dhibaatada shakilkiisa ka jira buubaagtu ay ka sheekeeyaan maalin isagoo tawaafaya kacbadda ama xaramka jooga ayaa wuxuu ku ducaysanayay uu lahaa yaa rab ictiq raqabatii min annaar ilaahayo iga qoortayda ka xoree naarta ama ilaahayo qoortayda ha cadaabin ama naarta hay gelinin nin ka mida dadka tawaafayay oo maalin hore u imi oo ula imi kees ama dad ay haystaan ayuu u keenay isaga marka xukunkii weli muu siinan oo keeskiisaas weli kuma xukumin marka ninkaasuu ka xanaaqsanaa habsanku ka habsaamay markaasuu markuu maqlay ducada uu ku ducaysanayo ay intuu ku qoslay wuxuu ku yidhi adiga qoor bale raqabadba ma lihid madax iyo garbaad leedahay waa maxay raqabadda laga xoreynaya naarta الأوقص مركو هذا الكلام قال وسك قصلي وحانين قلبي سحارني أو أنا كحناقين ذاتك أو إسلام كان نفتي سكو كلصان وحكوري يا تهاي كوما تهاي وحكوري وحنا هاي نينكي ما ويجي هركو إمي إدد أيس هيستين إلى إمك حكم أنا بحنين أو كيس كيساس إلى إمك أنا تكو حكمين أنتو سك قصلي بوحكوري يكالي أرورتا أنا هوش هذا دمينايا هطبا جبدي وحن أرن لها علمه أما علم الديني هالنقطة القرآن كي دين تأدبرنيسد أما علم مادي ودتكو أو باهين أو بلشدو أو باهنتي هالنقطة واحد حسوسة مركزتا علمه يا أقونت وحويا كقرى يكو افتمين مجدي نرشا وككبايا وحن نرشا كم قني نقصان كنرشا وكقيمها ككرو قاضايا
sababu noqonaya inay dadku kuu soo istaagaan ay ku ixtiraamaan waana cilmigaad baranaysid iyo aqoontu waxa weeye waxa qura duruufta adag ee nolosha kaa saaraya qofka noloshiisa ay jirtana ama noloshiisa uu jiro qof tala siinaya oo ka naxaya oo gacanta u dhiibaya markuu kufo waxa weeye qofka adduunka ugu nasiib badan hadduu qofkaas wala noloshaada uu jiro si fiican u ilaasho oo u ducee oo taladiisana qaado waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu